بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الجمعة. سورة حيا سورة الجمعة والسورة مدنية أهوي. إمام القرطبي وحوليه هي وفي قول الجميع علماء تفسير كان لغوري يدتك إهلك وها علمي qowlkooda dhammaantood waxay leeyihiin buu yidhi suuradda tan iyada ahi waa suuro ka mid ah suwarkii kusoo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda alhijrati wey. hadda waxaana arki doontaan waxyaaba badanoo ku saabsanba oo ku tusinaya inay suuradda tan iyada ah madaniye tahay, oo aayaadka hadda ugu dambeeya oo ku saabsanba jumcada iyo axkaamteeda qayb ka mid ihi waad arki doontaa wey. suurat ljumca. bismi illaahi raxmaan iraxiim. suuraddan iyada ahi waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay suwarka uu akhri jiray maalinta jimcaha oo kale weeye, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbada jimcada oo kale suuraddan iyo suurat almunaafiquun ama suuradda la yidhahdo hal ataaka sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiisul ghaashi iyo waa sugnaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyo wey. bismi illaahi araxmaani araxiim. yusabbixu alle waxaa naziha oo tasbiixsada maa kii fi samaawaati samaawaadka wixii ku sugnaaday wey. maadaasi maadaama mawsuul ay tahayo daa'iman waxaa taqaanaan jaar majruurkaasi waxaa ku tacallaqaya in ficil laga dhigo istaqarana la yidhahdo wey. mar haddii la ism mawsuul maadi la yidhahdo wey. yusabbixu lilahi alle waxaa naziha xumaan oo dhan waxaa ka hufaya oo nazihaya subxaanah maa kii fi samaawaati samaawaadka wixii ku sugnaaday iyo wamaa kii fi lardi arlada ku sugnaaday dhexdeeda wey. almaliki allihii ayay nazihayaan wey. oo almelik in la yidhaahdo waa badelun lilah caza wajal, oo macnaheedu maxay noqonaysaa yusabbixu waxaa nazihaya almaliki boqorkii koonkan asagu iska lahaa, meligii alquduusi ee dahiraanta badnaa, xumi oo dhanba ka dahiran, ceeb oo dhanba ka dahiran. waxyaabaha nimanka mushrikiinta ahu qoladii doonan ha ahaadaan ku sifeeyeen allihii ka dahiraa, allihii alcasiizi ee haalibka ahaa ee wax ka adkaanaya ama ka haalib noqonaya aanu jirin, bal asaga codkiisa haalib kaa noqonaya markuu doonay soo doono u aarsada caza wajalla wey. allahaas baa waxa u tasbiixsada maa fi samaawaati wamaa fi lardi wey. allihii alxakiimi xikmada badnaa ee wax shay kastaba meesha loogu talagalay isagu dhiga wey. maamulkiisu maamul wanaagsan uu ahaa caza wajal. laakiin taa waxaa ka fiican almelik in la yidhaha sifa laga dhigo lilah looga sifeeyo wey. yusabbixu waxa u tasbiixsada lilahi alle waxaa nazaha oo xumaan oo dhanba ka nazahaya iyo waxa nuqsaan oo dhanba maakii sifaxan oo dhanba wey. maakii fi samaawaati samaawaadka ku sugan maadaba makhluuqaadka samaawaad ku sugan mataqaana intay yihiin tiradooda weeye. marka waa maxay makhluuqaad waxa weeyaan caqlile iyo waxaan caqli lahaynba weeyaan, malaa'ig iyo keyrkeedba weeye. wax alla wuxuu korkaas ku sugan xataa waxa ahaadaan waa maxay dhagax iyo derbi waxay doon ha ahaadaan kursi iyo carshi wax kasta ahaadaan samaawaadka wixii kaa sarreeyaa oo dhanba ilahay ma nazahayaan wey. ahay oo xataa daruurahaas iyo wax alla wixii kaa sarreeya xidigahaas iyo qoraxdaas iyo ilahi subxaanahu watacaala bay nazihayaan wey. hade wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wey. shay ma jiro ilaa ilahi subxaanahu watacaala buu tasbiixsadaa wey. alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi washamsu walqamaru walnujuumu waljibaalu washajaru waddawaabu wakathiiru min annaas wakathiirun xaqa calayhi alcadaab. dadkii waa la kala reebay, laakiin marka xayawaanaadka iyo makhluuqaadka xataa caadiga hal ag joogay oo ilahay ka hadlayayo dhammaantood lama kala reebin wey. lama kala reebin wey. lama kala reebin wey. marka saas weeyaan.
ما في الsamaawaati ma fi ard allihii almaliki ee boqorka ahaa wey weliba kelimada almelik la yidhaahdo macaani badan bay wadataa oo allihii koonkan iska lahaa boqorkiisana ahaa wey oo samaawaadka waxa ku sugan iyo arladaa waxa ku sugan boqor kalena male axad iska leh isagu oo milkigooda ay yihiinna ma jira wey allihii alquduusi iyo haddana waa maxay daahirnaanta badnaa wey ka dahiraa wax allaale wixii ceeb iyo xumi iyo nuqsaan ah wey wuxuu leeyahy culamada qaarkood macnaheedu waxa weeye wax allaale waxay gaal ku sifayso oo xumaanahiba ilaahay subxaanahu watacaala ka dahiraa wey allihii alcaziiz ee qaalibka ahaa wey casiiska ahaa wey allihii alxakiimi xikmadda badna ee shay kastana meeshii loogu talagala dhigo wey xikmadihiisana waxaa ka midaba ilaahi subxaanahu watacaala inuu noo soo diray rasuul wey huwa isagoo alladii kii wey caza wajal bacatha soo bixiyey fi lummiyiina kuwii ummiyiinta ahaa kuwii aan waxba qorin waxna akrin wey culamadu waxay yidhahdeen alummiyiina waa nisbatun ila hooyadii baa loo tiriyey wey waa hooyadood siday ku dhashay bay ahaayeen xagga aqoonta qoraalka iyo waxa weeye akhrinta wey dad waxna qora waxna akhriya maahayn wey wuxuu leeyahay ninka naasir isacdi sheekh cabdiraxmaan raximahullah ummi waxaa la yidhaahdaa buu yidhi wax allaale wixii aan risaalo u iman buu leeyahy athar risaalo yaa litundira qowma ma undira aabaa'ahum wey wama aataynaahum min kutubin yadrusuunaha wama arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir laa kitaabna ma haysan walaa wax u sheegana ma aana haysan wax allaala marka wixii qaabkaas oo dhan baa ummi la yidhahdaa buu leeyahy ama waxa qora miyo wax qorin weeyaan laakiin waa iska ummi weeyaan wax markaas marka laakiin qowlka mashhuurka culamadu waxa weeye axadka aan waxna akhrin waxna qorin weeye ile nebiga calayhi salaatu wasalaam laftirkiisa ummi lagu sifeeyey buu soo maha aladiina yattabicuuna arasuula annabiya alummiy waan imaan doonta fi suurati alacraaf wey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa waxna ma qori jiro waxna ma akhri jirin weliba asagana sharaf gooni buu ahayd wey ahay wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubdiluun wey ahlubaatilku waaba kaa shaki lahaayeen sida hadda adoon waxba yaraata waxna qorin waxna akhrin sida haddayba shaki keeneen soo maha way leeyihiin waxa weye inamaa yucallimuhu bashar ay leeyihiin wey marka maxaad umala lahayd marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxna qoro waxna akhriyo wey shaki marka waa badnaan lahaa idan lartaaba almubdiluun wey marka qolooyinka noocaasi oo waxna qorin waxna akhrin wax kitaaba iyo wax rasuula hore loo soo diraan aanu jirino baa ilahay wuxuu leeyahy waxaanu dhexdooda ka soo saarnay rasuulan rasuul baanu ka soo saarnay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo minhum ayaga ka mida wey rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim dushooda akhrinaya aayaatihi alle aayaadkiisa buu dushooda ku akhrinaya wayuzakiihim wuu taskiyin wuu dahirayaa wax allaale wixii xun oo dhan buu ka dahirayaa wey shirkii buu ka dahirayaa iimaankii buu barayaa akhlaaqda xun oo dhan buu ka dahirayaa akhlaaqda wanaagsanida dhan buu barayaa wey dahiraantu saas weye wax wanaag oo dhan buu marka boocanaha baa la fari wey bay samaynayaan wax allaale xun oo dhan way ka fogaanayaan ama ha noqoto wax qalbiga ah ama wax carabka ahi ama wax ficilka ahaata wey saas weye wayucallimhum wuu barayaa nebigaasi calayhi salaatu wasalaam kuwa ayaga ahi ummiyiinta ahi alkitaaba kitaabkii buu barayaa oo waxayga qur'aan kariimka lagu soo dejiyey waa qur'aankii wey iyo walxikmata xikmadii buu barayaa oo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga wada wey imaamu shaafici baa ku mashhuur noqday kelmadda la yidhaahdo alxikma qur'aanka sunna laga wadaa markaad aragti alkitaab iyo xikma laysdaba dhigayo alkitaabna waa kitaabka ilahay qur'aan kariimka wey alxikmana waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee fasiraysa qur'aankan kariimka wey oo nebigu leh calayhi salaatu wasalaam alaa wa inii uutiitu alqur'aana wa mithlahu macahu wey qur'aankiina waa la isiiyey mid kaloo qur'aankii asna waxaa u dhigma oo sunnadiis nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa la isiiyey buu leeyahy marka waxay yidhahdeen culammadu marka la fiirsho ayadda noogu imaan doonta biidni illahi alkariim insha allah suurat alxazaab oo rabbi leeyahy wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illahi walxikma aayaadka ilaahay in lagu akhrinayo gurigii haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam radia allahu canhunna ajmaciin waxa weeye
mar haddii la yidhi aayaadka ilaahay ee guryihiin lagu akhrinayo iyo xikmadda lagu akhrinayo wey. xikmaddu marka waxay noqotay waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ile waxa nebigu uu akhrinayo waa labadaas wey imaa qur'aan xagga rabbi ka soo degay qur'aankan ah waxa weeyaan xuruufihiisaas iyo waxa weye lagu cibaadaysto oo waxa weeye ajirka iyo laga helayo oo taqaanana qur'aanka kariimka min alfaatixa ilaa suurati naasi ama waa maxay nebigu calayhi salaatu wasalaam tafsiirka uu tafsiirinayey iyo waxyigii kale labaad oo ahaa qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo taqriirkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayati illahi walxikma labadaas baa nebigu meesha ku akrinay calayhi salaatu wasalaam marka kadib laakiin imaamu shaafici ha ku shuhroobo laakiin culamaa salaf waxaa umalaysaahi inay saa kuwada fasirayaan alxikma in la yidhaha waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka dadka wuxuu barayaa aayaadka ilaahay iyo sunnadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam wain kaanuu waxay ahaayeen wey kuwa iyaga ahi marka inta tanu waxa weeye in badan qur'aanka kariimka ah qofka haddaad baratid xoogay siyaaqa qur'aanka uu ku hadlo qaabku u hadlo naxwahana xoogaa yar uu kaga bilowdo weliba intaan ina oo mukhafaf min athaqiila marka la jarayo masalan qofku in badan wuu dareemaya in meeshan ina oo mukhafaf min athaqiila ku jirta wey damiirkuna damiiru shani u yahay wey ilaahay an taqulaha low ana unzila caleyka kitaab markaad ku arkaysaa in kuna lagaafiliin in kuna licibaadatu gaafiliin in kuna licibaadatikum lagaafil inaa kuna wey marka damiirkan damiiru shan la yiraha meesha ka gonaanaya innadaasna mukhafaf min athaqiila weeye qur'aan kariimkan in badan bay ku badan tahay wana shaari doona markaan gaarnaba insha allah marka intan maxay noqonaysaa wa inahu arrinkuna wuxuu ahaa oo qisada weyn oo idin sheega mudan ay ahayd intaa nebiga calayhi salaatu wasalaam usan idin imaan ka hor wixii dhaca marka lagu sheegaya kaanuu waxay ahayen kuwa ummiyiinta ahi min qabli bicthati nabiy sal slam min qabli bacthati nabiy sal slam nebiga soo bixitaankiisa hortiisa waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan wey oo xaqa ay ka fog yihiin wey baadidaasoo mubiinin mid cad ah wey marka baadi fog bay ku sugayn oo baadi cad weliba mubiinna waa anaga in badan soo celinayo waxa weeyaan abaaradaasi ficil oo mutacadiya oo mafcuulkiisa isu qaatana waa noqdaa ficil laazimana wuu noqdaa wey hadda marka mubiina laleeyahay waxa weeye waa maxay mubiin oo cad wey marka wain kaanuu haba ahaadee wain kaanuu ay wainahu arrinku waxa weeye oo qisadu waxay tahay kaanuu inay ahaayeen kuwa iyaga ahi kaanuu waxay ahaayeen wey kuwa iyaga ahi waxay ahaayeen min qabla bacthati nabiy sal slam nebiga hortiis intaan lasoo bixin ka hor lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan bay ahaayeen baadidaasoo mubiinin baadi cad ah wey wa aakhariina kuwo kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu barayaa wey kuwo kalena waa uu bari oo yucallimuhum kuwa ummiyiinta ayuu barayaa alkitaaba alxikma wa aakhariina kuwo kalena waa uu barayaa wey oo kitaabkii iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu bari qowlkaas marka waxaa ka xoog badan bay yidhahen culammadu in la yidhaahdo aakhariinada waxay ku cadfan tahay ummiyiinay ku cadfan tahay aakhariin waxay ku cadfan tahay ummiyiinay ku cadfan tahay maxay noqonaysaa marka bacatha fi lummiyiina kuwa ummiyiinta dhexdooda wuxuu rabbi subxaanahu watacaala kasoo dhex saaray rasuulan buu kasoo dhex saaray aakhariina wa fii aakhariina kuwo kale dhexdoodana rasuul buu kasoo dhex saaray kuwaasoo minhum kamida weeyaan kuwan iyaga ah waxa weeyaan ummiyiintii kamida oo aan gadaal ka imaan doona wey oo waxna aan qorin waxna aan akrin amase wax kutuba hore u yeelan wey amase minhum waa maxay aakhariin ayaga kamid noqon doono ayaguna noqon doona kuwa nebi maxamed alayh salam kuwa kamida wey lamaa yalxaqu iyo wa aakhariina kuwo kaloo minhu kamida weeye kuwaasoo lamaa yalxaqu aan haleelin lamaada waa lamaada ku soo martay xuruuf aljawaazim bay kamid tahay soo maa jawaazimta weeye lam iyo lama iyo alam iyo alama markaad qaadanaysa wey marka waxay dhihi jireen
farqiga u dhexeeya lam iyo lamaadu lamaada waxa weeye qofka waxa kan ma aanay dhicin weli laakiin waa la rajaynaya inay dhacaan wey walamaa yaduuqu cadaabaka ilahayo cadaabkii weli ma dhadhamin laakiin waa la rajaynaya waa mar inay dhimi doonaan wey walamaa ya'tiihim muusan laakiin u imaanaya wey walamaa ya'tiihim cadaabkii ku imaan doonaa wey fulan ma aawo fulan lamaa ya'ta tiraahdo iman laakiin waa la rajaynaya inuu imaado wey waa la rajaynaya wey marka lamaa yalxaquu bihim ma aanay haleelin kuwa iyaga ahi oo hadda ma aanay soo gaarin laakiin waa la rajaynaya inay yimaadaan oo wax allaale waxay imaan doona ilaa qiyaami saaca oo nebigu calayhi salaatu wasalaam rumayn doona marka weeyaan waxay dhaheen culammadu qur-aanka fasaaxadiisa waxaa ka mid ihi lamaa yalxaquu bihim ma aanay haleelin oy sooba aanay gaarin taasi fadligaa suurtagal laga wado waxay dhaheen culammadu aayadkan iyo midka ka horreysaba waxay ku tusinayaan qolooyinkaasi ummiyiinta ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay subxaanahu watacaala u soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ee xikmada iyo kitaabka ilaahay barayaahi inay yihiin marka dadka ugu marka muhiimsan ee caalamkan ka soo baxay wey in wadanka si toos ahi xikmadii iyo sunnadii loo bara wey walaada qolooyinkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam la joogay waxaad dareemaysaa marka inay fadli goni lahayen wey inay fadli goni lahayen wey kuwa kalena waa imaan doona laakiin fadliga xaggiisa aan ku gaari karin saasa marka mesh kala timaysa wey lamaa yalxaqu bihim qur-aanka fasaxadiisa ka mid tahay ma aanay soo gaarin xagga fadliga oo fadliga ma aanay ma gaari karaan fadliga nimanka khiyaarta wey iyaguna khiyaar kale wey ama la yidhaahdo lamaa yalxaqu bihim hadda ma joogaane waa imaan doonaan wey oo lagu tusinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi ka dambeeya inaan imaan doonin wey oo wax allaale wixii maalintaas nebigu uu soo diray ilaa qiyaami saaca dadka imaan doonaahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay nebi calayhi salaatu wasalaam lagana aqbalaya ma wax kale wey marka waaaakhariina marka maxaad ku cadfaysaa fi lummiyiina wey oo waa waxay huwa aladii bacatha fi lummiyiina kuwa ummiyiinta dhexdooda alla mid ka soo saara wey iyo waaaakhariina minhum iyo kuwo kale kuwaa ka mid ihi ayuu rabbi wuxuu ka soo dhex saaray rasuulan rasuul buu kasoo dhex saaray wey marka kuwaasoo lamaa yalxaqu bihim wey marka kuwaasoo lamaa yalxaqu aan haleelin bihim ayagaas kuwaan aan soo haleelin ummiyiinta hadda joogta ma aanay soo haleelin laakiin way soo haleeli doonaanoo gadaal bay ka imaan doonaan markaasay nebiga calayhi salaam rumayn doonaan wey saasay kusoo haleeli doonaan marka ama lamaa yalxaquu bihim ma aanay soo helin xagga fadligoo kuwa fadli kuma dhama wey laakiin kuwa iyaguna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray weeye kuwa gadaal ka imaan doona wey wahuwa alla caza wajal alcaziiz allihii ghaaliba wey wax ka adkaan kara wax isku aakiis adi ka aanu jirin bal isaga cid kasta ka adago haalib ka ah cidu dana ka aarsada wey iska jir marka wey iska jir allihii alxakiim xikmad badan waaye marka alcaziiz alxakiim labadu khabar bay wuxuu noqonaya marka khabar koowaad khabar labaad wey marka khabar weeyaan huwadaas bay noqonaysaa dhalika midkaa isaga ahi oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddii kasoo dhex saaray weliba ummaddaa ummiyiinta kasoo dhex saaray fadlullah la fadligiisi weeye ilahay fadligiisi waaye yu'tiihi alla waa uu siinayaa fadligaa isaga ahi man axadka yashaa uu doono ayuu rabbi subxaanahu watacaala siinayaa wey wallaahu allana dulfadli fadli mid u saaxiibaya dheeraad wey alcadiim ee weyni badan wey ciduu doono siiyaa marka weeyaan ilaah fadligiisa wey marka waxay dhahen culummadu meeshatan qur-aanka fasaaxadiisa waxaa ka mid ihi ilaa qiyaami saaca nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo diritaanka rabbi soo dirayo waa fadli ilaahay ummadda ku kallaysta wey jinni insiba wey fadli ka weynna maba jiraba wey waxay yidhahen culummadu nicmo ka weyn ma jirto ilaahay inuu ummadatan u soo saaray ambiyadatan iyada wey cuntadatan iyo caafimaadka waxaa la helayahay waxaa ka weyni badan nicmada ambiyada ilaahay uu soo saaray wey baa ka weyni badan wey ولهذا waxaa noo imaan doonta fi suurati yuusuf waattabactu millata aabaa'i ibraahiima waisxaaqa wayacquubihin dalika min fadli illahi calayna wacala annaas dalika min fadli illahi calayna wacala annaas buu leeyahy nabiyullahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markuu qolooyinka xabsiga kula hadlayay
waliba wattabactu millata aabaa ibraahim weeye marka fadli ilaahay marka weeye adiga ibrahim wax ka dhigo axad ahlu tawxiid ah wey axad raacsan hadigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa fadli ugu weyn ee rabbi ku siiyo wey habeen iyo maalin aad ku mintidid wey oo ilaahay weydiisatid inuu taa kugu sugo oo ilaahay subxaanahu watacaala aanu waxa weeyaan qalbigaa usana kala dheexin weeyaan hadda ducadan subaxa galabtiiba اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين أو هرسا في دين عافماتك قفك إلهي في دين نصيو نسأل الله ألا يجعل مصائبنا في دينه وي مصائب نقول عي ساعي إنه دين تنوغ إلى شو أنا قد نقول إلى يعني فضل وكرمي هو أكرم الأكرمين وي لكن waxa ugu weyn qofka rasmaalkiisa ugu weyni waa diintiisa wey waana fadliga ugu weyn wey marka fadliga kow waxaa qaatay dadka umayiinta nabiga loo soo alay salaam kadibna waxa laala wixii loo soo diro dhan baa fadli ilaahay uu sii ay tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diro wey marka inay raacaanna waa midda looga baahan yahay wey marka kiicaan hadda ka wasii fiican fadlisu gacanta ku hayaa wey ذلك marka midkaasi oo waxa la khayrka la soo sheego dhan baa wey ilaynu soo saaray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadii khayrka wanaaga u sheegayaahi waa fadlullah la fadligiisa wey yu'tiihi xaal uu yahay marka fadlullah mar haddaad tiri yu'tiidata waxaad dhigi kartaa daalika kaasi yu'tiihi waad dhigi kartaa cumud waa khabar labaad daalika midka isaga ahi yu'tiihi alla wuu siinaya man yashaa xadku doono خبر لبعض كذلك ذلك فضل الله الفضل يسوي يؤتيه ألا وأوصينا من يشاء كدون لا تملك حد ولا في محل رفع وخبر لبعض ويمركوي أما نأتي ما دام فضل الله أي نقطي معرفة نقطي إلى إلهي بقى له إضافة يسمى الحوية أن محاول الجمل بعد المعارف أحوال وي حال مرك نقول سامر حال ويهين الله مثسينا يمين يشاء كدون أحد كدون فضل قاسيه والله ولا ذو الفضل فضل من صاحبه وفضل صار عظيم اي وين وين مثل الذين كوي مثل كود يتسالون حملوا لحباري ودوش لغا ساري اني ku camal falaan lagu waajibiyay التوراة كوي دوش لغا saaro inay ku camal falaan lagu waajibiyay ثم inta kadibna lam yaxmiluu aan xibaarin haa tawraadii oo aan ku camal falino كمثل الحمار dameer oo kale waaye kuwaasale tusaalahooda iyo mathalkooda iyo sifadooda wey dameerkaasoo yaxmilu ximbaarsan asfaaran kutubo ximbaarsan wey kutubo sifr waxaa loogu baxshay waa jamcu sifr waxaa loogu baxshay dhahe لأنها تصفر على الحقائق بين الحقائق اللي عطيسها wey تصفر هذا wax cad wey waxa safar loogu baxshay dhaheen bay dhaheen sababta qofka akhlaaqdiisu soo saaraa bay dhaheen akhlaaqdiisa wey ila qofka kala safarto inta badan waxyaaba fara badan baa laga yaabaa oo marka caadiga ay tahay aanay ku soo bixin inay ku soo baxaan wey marka kutubtuna maadaama khayr fara badan iyo wanaag fara badan oo ku dhex jiro ay caddaynayaan xaqaa'iq fara badan sifri baa lamid asfaar marka wey marka kelmad jumladan yaxmilu ihi waana imaan doontaa biidni illahi alkariim kitaabka qawaacid waxay u qaaday kamid tahay wuxuu leeyahay maadaama alximaar hadda waxa weeye alif iyo laam haddii la fiirsana jumlada xaal baad leedahay كمثل الحمار الدمير أو كلواي هو توراد لي وعمل فلا عن وعمل فلنو تساله دي مثل كود ومثل دمير أو كلواي يحمل حال ويه الدمير كاسينا من حمبارسن أصفار كنت بحمبارسن أما سهدر الصفالة بعد أخريه كرتاوي جملة حكا جملة أو حكا أنا في محل حويا وجر أو صفوي يعني مركب إلا محنينا الجمل بعد النكرات أوصاف معين الحمار مركب معناها لفيري هذا حمار قوي لغموضة وأنا كروي سيدرتي هذا ذيك التجمع صفوي كمثل الحمار الدمير أو كلوي دمير كاسو يحمل من حمبار صنعه أسفار كتبوي مركب إلهي سبحانه وتعالى قولين كان يقاحي وحوي زمن كستابة يلحظة كستابة مثل سعوني مركب يهوداس ha ku soo degto laakiin waxa lagu dhigay hadlayahay waa dad qof kasta wey war axadkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabkii ku soo degay aan ku camal falino
haddii waaba kasii daraa laftirkiisuba axad nebi muuse calayhi salaatu wasalaam kitaabka kusoo degay axad qur'aan falgu marka weliba kula socotaa wey arrinta yuhuud halaga hadlo laakiin axadka lagu dhega hadlayaahi waa qof kaste ee imaan doona wey qof kasta wey qofkii kitaabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ummadatan lagu ximbaaray oo waajib looga dhigay inay ku camal fasho ummaddu haddii ku camal fali weyso mid kastaba ay ku camal fali waayahay tusaalihiisu qaabkaasoo kale waa ximaarkaasoo kale ahay yaxmil asfara marka waxay dhahan culamadu ximaarka in badan ba arki doontaa isagoo tusaale laga dhiganayo waana waxaa la yidhahdaa xayawaanka ugu doqonsan xayawaanada lagu tiriya dheh sheekh la dhihi jiray sheekh cadiim maxamed saalim allah yarxamuhu oo raggii culimmadii xaramka nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka akri jirtay baa hadalladiis waxaa ka mid ahaa xoganoo dhakhtarnimaan wadaadku sheekoo soo mar yidhaahdaan wuxuu leeyahay ximaarkan ximaar waxshiga la yidhaahdo iyo ximaarkan ximaarka ahliga la yidhaahdo midka ahligaah diinta islaamka way naga xarimtay khaybar baan rajahay nebigu calay slam la xarimay qaswadii khaybar wey waxaa ta wax karsanay dheheen waxna qaarkii karsanaa marka lakarinayo qashiga lagu dalaalay marka wuxuu leeyahay islaamka wanaagiisa waxaa ka mid ihi hilibka xayawaanka aad cunaysaahi waxa weeye marmarka qaarkood dabeecaddiisii wax kaa soo hayra lahayn bay yidhahdeen ilaa hadda markii dambena waxa weeye aysan lahayn bay haddana waxa weye in yaroo xataa ay ka maqli jirin aabbayaalkooda haddana oo diintoodii haddana faraha ka qaadeen sababtoo hadda ilaa yomina haada kuwa xataa nasraanada saxda ah xooga u rooni oo xooga yidhaa wax diin baan haysa ugu dhow baan sheegayaa nasaara xoogaa sheeganayaa waxay ku leeyihiin hadda ma banaana nin u taga ma banaana naag inay guursan ma banaana qashinka zinada tan wax ma banaana waa dareemi hadda laakiin waa maxay zinadii qashinkii fuxshigii balaayadii oo dhan ba hadda waxa weeyaan iska banaysta iska banaysta marka hadda kuwan maanta joogaaho diin xumadii awal ay haystay inay diin xumo kale kusi darsadeen wey markaasay xayawaankii bay 100 jir ka liitaan wey inhum ilaa kalan caami soomahayn bal hum adal wey marka iyagoo haddana bilaa diin ah bay haddana doofaar ka dhargeen markaasaa diin xumo sii badata wey in gabadhiisa hortiisa waxa weeyaan ay tirahda ninkaana aabba saaxiibkeeya wuxuu doono u sameeyey xaaskiisa waxa weeyaan saaxiib ay yeelata isaga saaxiib wuxuu doono u sameeya qofka uusan ka xishoonin wax allaala wuxuu doono inuu sameeyo iyadoo urdin xumaa haddana doofaarka la cunaa waxay leeyihiin hilibkiisu waxa weeye wuxuu keenayaa marka dambe hayro xumaas weeyaan marka islaamku waxaa badan u xarimay doofaarka mataqaana u xarimay inaad taqaanana shardi maaha doofaarka hilibkiisu waa xaaraam ka fogow ilaah baa kaa xarimay war kale maba laba kadib xikmada maxaa ku jiri kara adiga shaqa ku taala maantaas wey laakiin haddaad wax ka ogaatid ama dhakhaatiir ogaatay ay jirto wax ka ogaatayo waa iska khayr ziyaada wey hadda waxbay sheegaan uu leeyahay sheekh cadiim uu sheegay waxaa ka mid yihi hilibka lo'da iyo hilibka doofaarkaba waxaa laga helaa buu leeyahay nooc ka mida gooryaanada laakiin wuxuu leeyahay hilibka lo'du midkiisu beesha caloosha ma dhaafa buu yiri laakiin buu yiri midkan doofaarku wuxuu gelayaa buu maqarku jirka dhexdiisa buu markaasaa bini aadamka in la qalqalay tegaysaa buu halkaana waxaa ku jira waxbaa ka nuxnuxsaday halkaasna mid kale ka nuxsaday halaga qalo in la yidhaha tegaysaa buu waa khatarnimadiisu le marka laakiin kan lo'du waa yaryahay haddii la helana waa maxaa caloosha ma dhaafay buu marka wuxuu yidhi hilibkaasi maantay dameerka oo dameerkan sheeko ku keenay qofku hadduu badsa lahaa wax dabbaal oo dameerka aga dhow noqonaya sidaa darteed buu xataa midka wuxuu leeyahay wax sheegaahay waa ka caqli badan yahay buu leeyahay xayawaanaad badan ee dhulka joogu leeyahay waa midka noola baneeya ka noola baneeyey ka nagala xarimana waa waxa weeyaan aad buu liitaa wey marka inta badan waxaa arkaysaa dameerkaas wax lagu matelayo dameerka wax lagu matelo waxaa ka mid ahaa axadka waxa weeya صوت الحمير مادة حتى صوت كاميرا وحن كرا عقل مثلا شيء محو أها صوت حق كاميرا رد حديث كأها أحد كين
haddii waxa weye ducahan oo kusoo arortay naftigeedu ducaha haddii qofka soo dhegaysanaya inuu khudbadina soo dhegaysan waxa weye uu hadhadlo in ximaar lagu matelay laakiin xadiiska waxaan ka rabay oo rajada xadiis saxiixa amaa yakhsha axadukum idaa rafaca ra'sahu qabla alimaami an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaarin aw yajcal lahu suuratahu suurata ximaar oo kama qaala sal alla alay wasalam xadiidka waxaan rajay culum badan inuu xadiis saxiixa marka waxay yidhahdeen culummadu yaab hay waaba cumdu xakaan ku yigaaba waa maasha allah saasaan rajaynaya marka waa khalaas maasha allah waa cumduhu siisa waa muttafaq calayhi ama shiikhu hadduu qaldamana cala aqal labada saxiix mid kamid wey baaraka allah fiikum labada saxiix lakin xadiiska mid ku jirin labada saxiix waxaa laga yaabaa sharx ku aragteen baa laga yaabaa ha bal iga hubsha waa maasha allah wey waxaan malaynaya kutubta sunnata mid kamid ku yeelay laakiin haddii marka cumdaha matnigu ku yaalahay waxaan rajaynaa shiikha inta badan waxaa lagu haystay waxay kamid inuu bukhaari muslim mar qaarkood uusan warin laakiin mar qaarkood uu qaldamayo mid kamid uu wariyo mar qaarkood laakiin uu muttafaqa caleyh uu yidhaahdo waaya waxay dhahen marka culummadu ninkaasi maxaa ximaar loogu matelaya sababta waxay yidhahdeen haddaa aragtaa weliba nimankan muxuu ahaa raggan reer aasiya oo axnaafta sheegtaa oo bakistaanta iyo waxa kan iyo bangaalta iyo afgaanta iyo salaada ay dukanayaan waxaad leedahay talow ma ansaxday nin baan la yaabo saas baan u fiirinaya bacda salaad malaha miskiinka isagoo olba salaad xumaa ayaa haddana malaha kii uu shaqaynaya malaha daba taagan oo malaha telefoonkii malaha xata jeebka marbasa u taabanaya waxaan la yaabay markuu samica allahu markuu yidhaahdo malaha isagoo malaha rukuucsanba uu gacanta un keli jiri mid ka qaado hor ususi tuurayaaba sidaas marka uu banaanka ku yahay uu haddana salaada dhexdiisa ku yahay imaamka allah dhahiyaba waa kasii horeyaaba waa kasii horeyaaba mar kasta marka waa maxay imaamka waa ka horeya xataa la tartamayo lama socdo waa ka hoosii hormarayaaba marka ilaahay ka cafiyo waxay ku leeyahay maaqan waxa axbaray waxyaaba uu koleyto axnaafta in badan bay moogta ray u badnay warkoodu marka waxay dhahen culummadu war qofkan hadda hadduu degdegay ee xataa imaamka uu ka hormarayo salaadii gormu ka baxaya waa inuu sugo imaamkiisoo maha war mar haddaadan imaamka hortiisa aadan ka baxayn salaadii imaamka waxaad uga hormartaaho waa noo xoogaa xamaaqahlay marka waxaa leeyahay sidii dabeerka caqli xumadii dabeerka ku jirta binaadi qofkaanu waa maxay sababta wax aadan hadhowtana waa uu sugay waa ku qasbanta inaad sugto soo maha xageed aadaysaa hadda iga hormarti mar imaamkii waa ku qasbanta inaad sugto soo maha calaa kulli xaal ximaarku in badan baa misaal marka laga dhigtaa waana xayna doqonnimada hadda kan marka waa maxay ximaar maanta haddaad masaaxif kalaamullahi ku yaalla soo saartid amase kitaabu saxiix albukhaari iyo saxiix muslim iyo sunanta iyo saxiixaynka iyo masaanidda iyo musanafaadka aad dusha ka saartid waa un culays u ziyaadisay midkaas rafaadka iyo dhibka ka muuqda iyo jiiqda culays ka muuqda iyo indhaha banaanka u keena culayska saaran ya muxuu ka faa'iiday marka muxuu ka faa'iiday marka waa maxay dameerkaasi nicmadaa dul saaran culays uu keli u noqotay waxba aanay ka faa'iidin adigana ogow wey kitaabkii ilaahay ee lagu yiri ku dhaqan eed ku dhaqmi weysayo sida ximaarkaas oo kala tahay wey adduunkana culays baad ka faa'iidi aakhirana culays baad ka faa'iidi wey oo cadaab aakhiri adduun oo isna ku sugaya qoshaa ku darsan wey mathalu aladiina kuwii tusaalahoodu ama mathalkooda xumiluu lagu ximbaaray attawraata tawraat lagu ximbaaray oo tawraat baa la yiri ku camal fala macna saas wey ayadda quraanka maxay ahayd maxaa ahaa waamur qawmaka ya'khuduu biaxsaniha inay qaataan mid ka wanaag badan xataa far weeye khuduu ma aataynaakum biquwati ma rabbi ayaan yiri buuri qaata wax rabbidiisu inay bijiddan ku qaataa la yiri buuri ilahi subxaana watacaala waana inoo dantin badan ilahi khuduu ma aatayna biquwati buuri markii suurada la soo dejiyey marka qolooyinkii saasa ee la yiri qaata uma intaa kadibna lam yaxmiluu aan ximbaarin oo aan qaadan haa kitaabkii tawraad ahaa oo aan ku camal falin weeye kamathali alximaari ximaar oo kale wey ximaarkaasoo yaxmilu ximbaarsan asfaaran kutubo ximbaarsan dabeer kutubo ximbaarsan wey bi'sa waxaa xumaaday mathalu lqawmi kuwii qoomkii mathalkoodii tusaalahoodii baa xumaaday wey aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illah alla aayaadkiisa kuwa beeniyey kuwa mathalkooda mathal iyo tusaale xumaaday wey
wallahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqawma qowmkii ma hanuunayo qowmkii alaalimiin ee aalimiinta ah wey qowm aalimiina ilahay ma hanuuniyo wey marka waxaad dareemaysaa marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu wax ku faro ilaahay kaalmo weydiiso inuu ana ku waafajiyo inaad ku calfashid wey si aan allahuma acini calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatka u leeyahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin u leeyahayo ilahay subxaanahu watacaala qof dhaalima ma hanuuniye ilaahay inaanu dhaalimiintaas kugu darin nafsida dulminaya oo waxa weeyaan waajibaadkii la saaray dayacaya ilan qofkaas waa dhaalim wey dulmigu waxa weeye imaa nafsada inaad dulmisid oo wix rabbi ku faray aad ka fogaatid wey inaad koonkan allihii ku abuuro aad dulmisid wey oo tan nafsiga dulmiga kamida wey lakin inaad shirka haddana usii samaysid waa dulmi kan ugu wey ina shirka la dulmi cadiim wey inaad makhluuqaadka aad dulmisid wey kul inaad u aaba yeelino waxay keenaysaa marka dambe in falamaa zaaguu azaaga allahu qulubahum ogow marka qolan lusan haddaad aragtid waa qola dulmi marka hore u qasada wey si marka ilaahay kuu hanuuniyo marka u horeysana hanuunka adugu marka bar horta ilahay weydiiso haddana markuu rabbi ku hanuuniyo haddana rabbi weydiiso inuu kuu kaalmeeyo inaad ku sugnaatid wey oo dulmi oo dhan ba rabbi subxaana watacaala uu kaa ilaaliyo wey yusabixu alla waxaa naziha yusabixu waxaa hufa lilahi alla waxaa naziha maa kiibaa naziha fi samaawaat istaqara fi samaawaati wey istaqaradaas waxay tahay marka silatu mawsuulka wey samaawaadkay ku suga dhexdiisa iyo wamaa kiibaa naziha fi lardi istaqara fi lardi ku sugan wey allihii almelikii koonkaas ka lahaa samaawaadkii arrada waxay ku sugan boqorkoodana aha wey allihii alquduusi daahirnaanta badnaa ee xumoo dham ka daahirnaanta badnaa wey nuqsaano dham allihii alcaziizi haalibka ahaa ee axad kastana ka adka asagu wey allihii alxakiimi xikmada badnaa oo shay kastana meeshii loogu talagala dhiga wey huwa isagu alleh alladii allihii waayo kii wey bacatha soo bixiyey oo soo saaray soo diray wey fi lumiyiina umiyiinta dhexdooda kasoo dhex bixiyey waa kuwa waxna qori waxna akrin wey ama sida culamada qaarkood yirahda naasir sacdi kamid yahaba wax allaala waxaan rasuul iyo kitaab hore loogu soo dirin baa laga wadaa wey rasuulan rasuul usoo dira wey oo kuwaanaa kamida wey rasuulkaasoo minhum ayagii kamida wey oo min anfusihim wey oo luqadooda ku hadlaya haddana wey ay fahmayaan wey rasuulkaasoo yatlu akrinaya waana imaa doontaa haddii sifa waxa nakiro la sifeeyo jumlada gadaasheed timaadaahi sifana waa ka dhigi kartaa xaal waa ka dhigi kartaa ilan xoogaa nakiradii baa sifaysayoo wax yar baa nakirada kasoo dabcisa marka wey marka rasuulahu hadda waa nakiro rasuulkaasoo minhum ayaga kamida minhum taasa sifa ku taalo sooma ay kaa'inan minhum wey rasuulkaasoo kaa'inan mid kamid minhum ayaga weeyaan rasuulkaasoo yatlu waa dhigi kartaa ama yatlu xaal uu yahay mid akrinaya wey calayhim kuwaa dushooda ku akrinaya aayaatii alla aayaadkiisu ku dul akrinaya iyo wayuzakiihim wuu dahiraya oo akhlaaqda fiican oo dhan buu faraya wixii xun oo dhanna waa ka nazihaya wey marka ilahay una weydiisana wey walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abadan walakin alla yuzakii man yashaa wey ilahay qofku doona taskiya wey akhlaaq fiican wanaag waa maxay qalbi iyo lisaan iyo jawaarixba inuu ilahay ku taskiyeeyo ku dahiro bifadli wa karamihi wey haddana waa maxay meesha laga qaataa waa meeshaas wey ka qaada wey halkaa dariiqilii leedahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wey wayucallimuhum wey oo adduunka oo dhan noloshiisu waa meeshaas wey meel kale male wey wayucallimuhum mid baraya wey kuwa ayaga kitaabkii u baraya oo waxyigaa kusoo degay nabiga alayhi salaatu wasalaam wey oo qur-aankaa iyo walxikmata xikmadii buu baraya oo sunnadii nabiga alayhi salaatu wasalaam wain kaanuu wainahu arrinkuna waxa weeye kaanuu waxay ahaayeen min qabl nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan lasoo diray ka hor waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi bay ku sugnaayeen wey qabldaasna in badan ay soo mari doontaa wey qabl iyo qabli min qablihim bay asalku ahayd min qablihi min qabli lbactha wey min qabli lbactha min qabli lbactha wey bacthada bacthati nabi sal slam wey marka waxay yidhahdeen markaasoo kale idaafadii baan aad niyeysan tahay wey ay min qabl markaa min qabl markaad leedahayo qalbiga waxaa kaaga jira min qabli bacthati nabiy sal slam kaaga jirta wey markaasaa marka idin la gooyo qablu waxay noqonaysaa marka mabni wey waxaa jira waxyaaba marka hore icraamaya laakiin axyaana mabni ah wey markaas mabni ma ah marka qaarkood mabni noqonayaan wey hadda nidaha muraada oo kale yaa muxammadu muxammadu ada waa mabni
maxamedna mabni maha waa taqaanaa macrabaad ka mid ahaan jiray waa xaalaad gooni marka wey markuu mabni noqonay marka wey waaya wain kaanuu min qabl lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan bay ahaayeen weeye baadidaasoo mubiin oo cad wey wa aakhariina kuwo kale dhexdoodana wuu ka soo bixiyey rasuulkaas wey kuwaasoo minhum kuwaa ka mida wey oo raacitaanka ay raaceen bay kala mid yihiin wey kuwaasoo lamaa yalxaqu aan haleelin bihim kuwaan iyaga aan haleelin wey kuwaas aan haleelin wey marka kuwo kale imaan doona kuwa weli aan haleelin xagga zamankaysan ku haleelin ama xagga fadligaysan ku haleelin wey ama labadiiba kumaysan haleelin marka weeyaan laa fadli walaa zaman labadii marka kumaysan haleelin wey marka qur-aanka fasaxadiisa kamid taha wey haddii nebi maxamed calayhi salaam kuwa la jooga ilah leeyahayo laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ya ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu ya oo nebigu le alayhi salatu wasalaam iiga taga saxaabada saxaabi kale ku leeyahay axadkiin waxa wey kood nisfu mud uu bixiyaa haddii idinka magayad bixisaan ya ma gaari karto ma gaari kari wey marka waa maxay maxaa minhum gadaal ka imaanayaan maysan harin xagga fadliga wey wahuwa allana alcaziizu allah caziizu ghaaliba wey alxakiim xikmad badan wey dalika midkaas oo ilahay inuu soo bixiyaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo makhluuqaadka un kasoo dhex saarayo fadlullahi alla fadligiisii wey inuu khayrkaasna barayo fadlullahi alla fadligiisii wey ilahay koonkaa mulkigiisu leeyahay soo saaray nebi maxamed fadligiisi waxa la cuna soo sheeg marka weeyaan fadlu alla fadligiisi wey yutiihi xaal uu yahay alla mid siinayo wey fadligaasna man yashaa xadku doono amase yu'tii khabar labaad ka dhig wey yu'tii alla waa uu siinaya fadligaas ya wuu siinaya alla caza wajal man yashaa xadku doono wuu rabbi siinaya wey wallahu alla dulfadli fadli saaxibo wey fadligaasoo alcadiim marka nas'al allah caza wajal min fadlihi alcadiim wey fadligiisa weyn waa inay weydiisan inuu naga siiyo caza wajal wey mathalu ladiina kuwii mathalkoodu iyo tusaalahoodu xumilu tawraata kuwii mathalkoodu xumilu tawraata tawraad lagu ximbaaray oo inay tawraad ku camal falaa lagu waajibiyey uma intaa kadibna lam yaxmiluu aan ximbaarin kuwaasi haa tawraad aan ximbaarin oo aan ku camal falinu kamathali ximaari dameer oo kale waay dameerkaasoo yaxmilu ximbaaraya oo sida wey asfara kutub sida wey ama xaal uu yahay dameer oo kale wey ximbaarsan kutub wey bi'sa waxaa xumaaday wey mathalu lqawmi kuwii tusaalahoodii mathalkoodu iyo sifadooda xumaatay wey kuwii kadabuu beeniyey biaayaatillah alla aayaadkiisa kuwii beeniye wey oo kadabudaasi waxa weeye waa silatu mawsuulka aladiina wey marka aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatillah alla aayaadkiisa kuwii beeniyey mathal kuwaasaa u xumaaday mathalka xumaadana kaas weeye wey markaas weeyaan waxay dhahay culimadu almakhsuusu bidammi waa go-an yahay wey waa mathalkaas wey tusaalaha la soo sheegay ayaa u xumaada tusaale marka lagu sifeeyo kuwaan iyaga wey waaye wallahu alla laa yahdii ma hanuunayo alqawma qowmkii alظaalimiin ee ظaalimiinta aha wey nafsadiisa dulmiyey غayrkiisa dulmiyey allihii abuurta dulmiye wey hada وصلى الله وسلم على نبينا محمد